xaflad heer sare loo soo agaasimay ay ku qali jiminayeen arday dhigata College-ka Light Up International College ee ku yaala magaalada Laascaanood ayaa ka dhacday maanta Hotel Rise waxaana ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta matasharaf siyaasiyiin uqaal isimo bulshada qaybaheeda kala duwan ardaydan ayaa ka qali jiminaysay kuleedaha caafimaadka iyo journalismka ugu horeey halka waxa ka hadlay maamulka college-ka Abdulwali Yaasir Suudi isagoo ka warbixiyay marxaladii uu soo maray College-ka Light Up International College. kadib waxaan jecelahay inaan runtii aan halkan aan uga mahadceliyo matasharafta qiimaha iyo qaayaha leh waqtigoodii iyo jaaniskoodii noo soo hibeeyay taynkoodiina in ka soo jaray si ay noola qaybsan lahaayeen xafladda runtii qiimaha weyn iyo qadarinta leh ee ardayda aan ku kalsoonahay runtii qalinkooda iyo maxaa ahayd waxa ay soo barteen aan uga warwarin runtii cilmiga ay barteen inay dayacaan waxaa jira arday saxaafadeed oo ka kooban xirfadoodana aad arkaysan halka kusoo bandhigay runtii waxay ka kooban yihiin konton arday runtii oo qaab baraticaal ahaan iyo qaab teori ahaanba kusoo bartay shuruudihii caafimaadka shuruudihii saxaafadda buuxiyey إتجسي أشحات عفاك البديل. لمانتا مرتشرفتا يردمان بدفك كسوة قيد قلي حبتت الآتيات وقيمها الضغط. انت هذا الكلماتو مانتا ومالي دولي مالمها كلي. مانتا وحيلوتا إيماني وين سببتو أي تعالي حلو قالي قيدكم بدأ بمهيني. كاتو بعد السلام وحامحاس قالي الله سبحانه وتعالى يسبوك الكيني قوبتان آتيات وقربتي يبلع رمضان waxaan mar labaad u mahadcelinayaa maamulaha macadka Light Up iyo macallimiintooda oo iyaguna noo suurageliyay inay noo qabsooto maalin nagu habboon inay xafladda noo qabsooto aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa والدينا الأعزاء الذين ربونا على هذه التربية العلمية اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. College-ka Light Up International College ardaydaas oo runtii soo dhiganaysa college-kan sanado fara badan ama soo dhiganaysa 1 year ardaydaasi maanta waxay ka qalan jabiyeen fakultiyo kala duwan fakultiyadaas waxa ka mid ah journalismka ama saxaafadda waxaad u taqaanaan ama heertiga ama caafimaadka waxaad u taqaanaan wadaniyaa ardayda ka qalan jabiyaysa macadka Light Up International College oo ah macadka ugu firfircoon ee soo saara intaasoo arday oo ka qalan jiraysa leadership healthy public speaking and so on saas awgeed waxaan maanta hambalyo aad iyo aada u dhigayaa ardayda ka qalan jirinaysa macadsannahay ama fikirka aan haysano waa fikir khaldan weeye journalismku waxa weeye waa wadda labaad ee dunida marka laga hadlayo dhinaca militariga oo kaalinta koowaad ee waddanka ku hoggaamo laakiin journalismku waa waddanka labaad waxaan rajaynayaa aad ugu rajaweyna cilmigooda iyo aqoontooda loo leeyahay ama waayarin loo leeyahay waxa weeye sida ay bulshadooda ugu shaqayn lahaayeen laakiin ma aha kuwo ummadda iyo dalka iyo dadka kala faquuqaya oo cid gaara iyo guruuba la safan waa kuwo u dhex ah oo garanaya inay bulshada iyo dowladda shacab iyo ra'yi iyo qofka dulmada u baahan inay gargaaraan arrinta kale ee muhiimka waxa weeye annagu hadafka ka doonayna waxa weeye waxaa jira oo gobolkeena ama madaqadeena ka jira waxa weeye dad badan oo baahan oo la rabo inay soo fadhido waxay u carbisan yihiin oo u tababaran yihiin in dadka u baahan in loo gurmado inay u soo fadhigaan caalamka iyo Soomaalida si ay ugu gargaaraan iyaguna way garan karaan ama way leeyihiin aqoontii ay u gurmad lahaayeen dadka baahan ee u baahan in caalamka iyo Soomaalida loo soo fadhiyo saddex waxaan mahad iska leeyahay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta qaybaheeda kala duwan maamulka iyo macallimiinta Light Up ardayda qalan jabinaysa baada saxaafadda dhammaantiin idinku isku dumo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh marka labaad waxaan mahadcelinayaa Light Up oo runtii maanta inoo suurtageliyey inay xafladda quruxda badan inoo qabsoonto oo ilaahayna waafajiyana ka soo qayb galno marka labaad dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo marti sharafta iyo qaybaha bulshada kala duwan
وانصاريا مسكيسان يا مسكيسان صاريا مروبان بدبصدا نولد ما صلوري دمان مغان تمورن بربان اندلنا يا إنام بانك نيا ميها وانصاريا وعن صلاة الإسلام وسلام يا معك لايت أب أرديسا معلمينتيسا معمولياشيسا iyo marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan sharafan ee qiimaha badan waxaan ku salaamayaa qof walba taytalkiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan ka bacdi kulli waxaan malaynayaa waa xaflad qalinjabin xafladuna waxaa keliya ay tahay in lala wadaago farxadda ardayda qalin jabinaysa xafladdeena qalin jabinta iskuulka maqamadka light up institute for human development waxaan idiin sheegayaa wax yar ku saabsan light up ama xarunteena waxbarashada waxaan aasaasnay sanadku markuu ahaa 2015 bishii shanaad 25 خضر محمد عبدي بدعة 24 جي في مغارة الله سانود